kulanti wacan mar kale ku soo dhawaada sheekadii mulkiilaha qaranka. sheekadan waxa qoraalka ka sameeyay oo dhacdooyinkeeda la kulmay wariye Maahir Jaamac Aadam. waxa codeynaya anigoo ah Ciise Maxamuud Ciise. waxaad ka heli kartaa janalka ogaalka Audiosom iyo bogga Maahir Jaamac Aadam. qaybtantii ka horeysay waxa aynu kaga soo sheekeynay in saaxiibkay wadani uu yeelay codsigeygii oo isagii dhexgeeyay mar kale groupka kadib markii uu ii sheegay inuu la socday Abi Ahmed oo Muqdisho yimid balse uu kaftan u rogay. waa anigii mar kale ka mid noqday qolkii oo magacii laga bedelay iyadoo loo bixiyay isdhexgalka Soomaaliya. waa anigii maatiga iyo ragska dhicinta cod ahaanta ugu duubay. odaygii Ingiriiska iyo Soomaaliga isla socday igu jawaabayna waa isagii yidhi u kaadi martiba tahay. waa anigii inta yara carooday aan ugu jawaabay waxaan ahay mulkiilaha qaranka danihiisa laga hadlayo. waa anigii isa soo qaboojiyay kadib markii uu wadani u kaadi yidhi. kolkaas kadib qolkii waa isagii uu nagula soo biray odaygii siyaasiga ahaa ee aan salaanta kula orday balse Ingiriiska nagu wada salaamay. soo socotay waa anigii soo sheegay inaan ka baaqsan waayay iyadoo ila qaraaraatay waxa dhalan kara haddii aan soo dhigo muuqaalkii aan ka hayay Master Wadani ee uu ku goodinayay in la laayo Soomaalida uu u hadlayay sidii nin aabba Soomaalida u wada ah. waa anagii isa soo weydiinay sida mucaaradka iyo rag taageersan xukuumadda ay meel u wada joogi karaan. haddaba ku soo dhawaada qaybta afraad ee sheekada mulkiilaha qaranka. kuma fududaan karo inaan markiiba golo loo dhan yahay aan dhex dhigo muuqaal dhalin doona muran badan iyo kala shaki. waliba quseeya saaxiibka madasha igu casumay wax badan waa inaan horta ku sii talagalaa. sidaa darteed maahan maanta xilliga aan dhigi lahaa marna ceeb igu noqon mayso inaan goobta muuqaalkaas keeno waayo madasha qudheeda ayaa ah meel aadaad rumaysan kadhaan aan ku arkay wax badan oo qoraaladiina ah oo laga soo qaaday sawiro haddana la falanqeynayo aadba ku kala badnaataane. dhowr saaxiib oo hadda ka faalooda sheekadan ayaan arkay qoraallo public ah oo ay barahooda bulshada dhigeen laakiin ay dad u soo waarideen madasha. kuwooda saameynta badan leh waxaa lagu falcelinayay la hadal hebel ama hebla sida uu u fikirayo ama ay u fikirayso ma ahan sax. waxaad moodaa dugsi hoose dhexe oo uu macallinku saxayo ardayga inta uusan jawaabta dhammayn. waxaan indhaha ka daawadaba maalin ayaan isfurfuray oo bilaabay inaan la kafto marag yar oo aan siira fahanay oo qolka joogay. waxaan ku idhi niman yahow meesha caajis weynaa. nin ka mid ah ayaa igu yidhi Maahir feel free. waxaaba xigay odaygii aan ka gaabsanay magaciisa ee qolada mucaaradka ka tirsanaa oo qolka ka dhacay ama ka baxay. kadib isweydiin ayaa bilaamatay yaa dhibay odayga waryaa tegay iyo muxuu dhibsaday. nin ayaa soo hadlay oo yidhi ilaa xalay waxaan la hadlayay siyaasiga. wuxuu ka cabanayay in qolka ay ku jiraan wariyaal ama dhalinyaro aan fahamsanayn ajandaha qolka sidaana ay tahay khalad. waxaan u sheegay buu yidhi in ragga ku wada jira qolka ay yihiin aqoon-yahano iyo dad qurba joog ah laakiin dabcan hadda wax buu dareemay sidaa ayuuna uga baxay qolka. war cajiibsanaa markaan hadlaba muxuu ruux la dudayaa ma odhan siyaasad ma odhan sidoo kale ahdaaf uu ruux la dido kali ah waan kaftamay waliba sida ugu dabacsan malaha kaamkii cuqdiga ayaan xaadiray. waxaan gaar ula soo baxay ninkii aan golaha kula dhex kaftamayay. waxaan ku idhi sida ruux isaga aad ugu kalsoon war meesha dadkan wada cuqdadaysan ee dhooban maxay ahaayeen. wuxuu igu yidhi Maahir ii soo dir sawir nooca teesara ah oo aad leedahay magacaaga oo saddexan iyo xirfadaada. waxaan la soo booday oo maxaa intaas la igaga baahday. wuxuu yidhi adigu in lagugu kalsoonaado ayaad rabtaa adigiina dadka kuma kalsoonid. markaas ayaan idhi laakiin anigu cidna shuruud kuma xidhin kalsooni darteed waxaase adigu weydiinaysaa waxa ii qaaska ahaa. kadib si cadho leh ayuu igu yidhi bal waayahay ee hayso waxaaga annagana hana waalin. runtii hadalkaas aad baan uga cadhooday waayo meeshan la kala leeyahay ee haddana ku xusan in la wada leeyahay ee kalsooni aan la isku qaadi karin la iska goobayo haddana sowyaab maahan. waxaan saaxiibkii hadalkii ugu dambeeyey ku idhi libaaxayn wacan saaxiib
maadaama doodaas ay ahayd xilli duhur ah ayaan fiidkii anigoo iska shaahaya waxa ay soo wacay Master Wadani wuxuu igu bilaabay inaan khalad galay oo ah inaan la xidhiidho ninkii isaga ahaa waayo ninkaas wuxuu ka mid yahay madaxda amniga qolka calashaan waa ninka iska leh waajibaadka xaqiijinta qofka bal waa yahay maxaa la iga xaqiijinayaa ninkaygan hadda 2 bilood ku dhawaad fadhiya qolka Wadani wax muhiim ah ayaan isla habeenkaas ka ogaaday hadaladiisa waxaana ugu muhiimsanaa in siyaasiyaas ay soo qaldeen rag ka mid ah qolka oo si ka duwan sida dhabta ah ee qolka loo sameeyay loo sheegay kadibna uu isaga baxsaday meesha waxaana laga rabay inuu soo dhigo qoraallo kadibna loo gudbiyo taqsiyaad kale oo qolkan ka warsugayay tan xigta in madaxda qolku tahay 13 ilaa 15 ruux oo mushahari ah mararka qaar waxa halkaas lagu qaybiyaa qoraalada xoog leh iyo muuqaalada lagu jahwareerinayo bulshada lacag laguma soo qaado qolka dagaalna laguma soo qaado kali ah sideen u qaladnaa garaadka bulshada siyaasi hebel oo mucaaraday siyaasaddaas sidaas ah sidee isaga qudhiisa ugu yeelnaa mawduuc bedela jawiga ay doodiisu samayn lahayd haddana isla goobtaas ma ahan halka lagu go'aaminayo talada waxaa jira qol kale oo laga sii maamulo isla ajandayaasha qolkan kaas oo aanan anigu gaarin xilligaas wareer iima yara aniga iyo iyagaba waxaan ka simanahay aqoon la'aanta sababta aan halka u fadhiyo waxna ma soo kordhiyo waxna wax kama bedelo waxaan ahaaday marqaati aamusane ah waxaan sida ku joogaba waxa maalin la soo dhigay sawir uu leeyahay mid ka mid ah culimada kulig leh siyaasadda wadanka waliba aanay isku wanaagsaneen dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya ee haatan jirta sawirkaas waa xilli uu wadaadka qudhiisu malaysan kareen marxaladda iyo qadiyada uu gudbinayo dartiis kadibna qolkii waa la isku qabtay hal isticmaalo iyo hal joojiyo anigu sidii wasiir hore juxa ayaan ka dooday sawirkaas inaan la baahin haddana markii codka loo qaadayay isla sidii juxa ayaan ka gaabsaday khalad iyo sax waxaan falayba waxa intaasba iiga muhiimsan inaan hawshan sal gaaro oo aanan qolkan la iga saarin ilaa intee baan hoos eegi karaa sawirkii waxa la isku raacay in la saaro waliba ugu yaraan 40 ruux hal mar ay wada dhigto laakiin waxa ka raacday mucjiso aan dib idinkaga faahfaahin doono dhinaca kale isla maalinkaas waxa soo yeertay sheeko lama filaan ah oo cajiib ahayd la soco qaybta shanaad oo aynu kaga hadli doono maxay qisada wadaadku dhashay waa maxay sheekada xiisaha leh ee maalinkaas iyana dhacday ma noqday ruux dulqaad u yeeshay xog raadintan maxaa qarsoon oo xiiso badan qaybta shanaad ayaynu kaga jawaabi doonaa